halkan waxaan ka soo jeedinayaa maasalayaal miyana dareensanaan oo ku saabsan dagaalada iyo dhibaatada ay leeyihiin maasadaasoo ay ku dhalisay dhawaan beelihii walaalaha ahaa ee ku dirirayay deegaanka Ceelfoyn iyo deegaamada ku xeeran markaa maasadu waxay ka hadlaysaa in dhiigga islaamka oo la daadiyo uu yahay wax aad iyo aad u khatar ah inay dadku yihiin dad wada dhashay inay yihiin dad walaalo ah in midnimada laga shaqeeyo in horumarka laga shaqeeyo in wadajirka laga shaqeeyo si loogu guuleysto nolosha aakhire ee wanaagsan iyo nolosha adduunyo wanaagsan markaa maasada miyana dareensanayn magaceeda la yiraahdo waxay ku bilaabmaysaa sida tan haddii aad dagaalantaan amaba dhiig daadisaan haddii aad dabar jartaan amley geesigii dartaan wanaagii dacal martaan xumaan ku durduurataan haddaad isturaamataan cadaawadda doorataan dabeed faan kuba dartaan dilkii dhaca faafisaan haddaad gaal daba gashaan dhaqankii doorisaan su'aashaa daah furoo maxay darajee dhashaa haddaad mar ducaysataan digriga rabbi haysataan islaamnimo doorataan xajkii aad dawaafaysaan masjidka aad duquulaysaan haddana dhiig daadisaan idinku isku duulaysaan daliilkeedaan rabaa hadday daacadnimo dhab tahay iimaankuna dooran yahay hadday ragannimo dun tahay geesinimo diiran tahay hadday gobonnimo dul tahay dadnimo iyo sharafta tahay colaad inaad door bidaan miyay daw noqonaysaa haddaad dacar qooshaysaan dalkii baabi'inaysaan haldoorkii dooxaysaan haddaad dundumada ridaan dhirteenna aad daadisaan haddii shimbiruhu didaan dalkeenna ka duulisaan haddii dibnihiinna hadan difaacuun sheegayaan dhibuun aad ku doodaysaan haddii hooyada dayacan intay qaxdo diba digtaan haddii dahabada hablaha duleed aad la raadisaan haddaad digillada shidaan duufaanadu ay kacaan duurjoogtii fiidhisaan maxay darajaha dhashaa doraadkii kaa godgalay hadduu maanta duugan yahay xabaal ku daguugan yahay haddii aanad adigu tagin amaba durin aanad dilin daahir buu noqon lahaa oo agtaadu degi lahaa maxaa aakhiro dalle ah su'aalu diyaargarow maalinta ay daaran tahay cadceeddu duleedka tahay dalluu naari hitan tahay jannadiina durugsan tahay dalluu naari hitan tahay jannadiina durugsan tahay dadkuna kala caagan yahay dunuubta xadaafka tahay arladu duuduuban tahay ugaalku dullaysan yahay buuruhu ay dayaamayaan dabayluhu fooriyayaan xaqana aan la duudsiyayn dulmiguna aasan yahay miyaana dareensanayn docda aad eegtoba haddii dunida noloshiisi tahay haddii dooggii yar yahay abaaro dilaacayaan haddaan daad soo jabayn mahiigaan soo da'ayn haddaan durduryo xareed bulshadu ku dabaalanayn haddaan deegaan baxdiyo dhulkii daaq laga helay haddaan dambar xoolihii dihnaa laga soo lisayn haddii sixir barar dallacan dalkii halisuu ku yahay haddii dawarsigu dad badan xalaal doorkaa u yahay haddaan da'yartii tahriib ka daalaynoo socdaan damiirkii shaqayn lahaa hadday waanadu dam tahay qalbigu daxalaysan yahay haddii hablihii dadnaa xijaabkii daba mareen haddaan dul maroo dhammaan murtidan duuduub u dhigo dunuubteennii ayaa arligu weli diidan yahay waxay dawadeennu tahay inaan diinta iyo sharciga ka dhigannaa daw la maro markaa maansadaas haddaan halkaa kusoo gebagabeeyo miyaana dareensanayn ee ka warramaysa aakhiro iyo qofka muslimka oo dhiiggiisa la daadiyo inuu aad iyo aad u khatar badan yahay dadkuna ay yihiin dad walaalaha wada dhashay midnimada laga shaqeeyo horumarka laga shaqeeyo wadajirka laga shaqeeyo wada noolaanshaha laga shaqeeyo is-ixtiraamka maansada haddaynu intaa kusoo dhaafno waxaan halkan kaga xigsiin lahaa maanso kaloo la dhaho haw nafsi oo iyaduna ku saabsan diinta islaamka oo lagu dhaqmo iyo wanaag oo iyaduna lagu wada shaqeeyo in yar bay ku kala duwan yihiin laakiin maansadaasina waxay sheegaysaa ka warramaysaa dhibaatada uu tahriibku leeyahay ayay qayb kaga warramaysaa qayb waxay kaga warramaysaa suhudiga waxa weeye qofku inuu aakhiro u diyaargaroobo inuu xumaanta iska ilaaliyo inuu macaasida iska ilaaliyo inuu xanta iska ilaaliyo inuu dhammaan dunuubta iyo dembiga iska ilaaliyo inuu wanaagga ka shaqeeyo inuu horumarka ka shaqeeyo inuu ixtiraamka ka shaqeeyo inuu ummadda guusheeda ka shaqeeyo ayaa maansadaasina ka warramaysaa markaa waxay leedahay adduunyada waa hayaane harkaa labadiisa geline hoosiiskay kugu hodaaye dadkuna waa u heellan yahaye naf yahay shaydaan halligay mamaagan wax jira u haysta hurdada aan kaba kacaynin habowdee habaqtamaysa adduunkuun haybinaysa hamiga heer sare ka gaadhay mar kale aakhiro hilmaantay bahaadaan baad waxmud maxaa kaa sii horreeya hamigoo istaba socdaaye ninkaan hawadiisa raacin jannaa hooy looga dhigaye hurdaad gelaysaa macaane iyada taa waan hubaaye daliil baa loo hayaaye shaydaankuna waaba halise habaar biiruu qabaaye naftays hareer jiraane ha yeesho ma kala hadhaane aadaan bay kula rabaane haddii aan laga hortegin cilmiga hoy looga dhigin halis baad daaqaysaaye jaxiimaha kuu hantiyahe allow noo heeli maanta wanaaggiyo noahul khayrka ninkii diintiisa haysta samaanta u sii hilaabta hir buu gelayaa qaboowe jannadu waa lama huraane idaabaad wada hantiye horaa loo sii socdaaye allow noo heeli maanta wanaaggiyo noahul khayrka naf yahayeennaan hilmaamin xumaanta u sii hagoogan habaaskiyo boodhka doonan ninkii gale hol canaarta naftiisuu hiifayaaye allahayow nooga heeli naf iyo shaydaan hubkooda ifkana nagu sii hagaaji hirkaa jannadee baxaaya aakhiro hanti nooga sii dhig waxaa weye qofku markuu aakhiro camal wanaagsan oo ilaahay uu ku waajib yeelo uu shaqaysan waayo waxa weeye aakhiro wuu calacalaa wuxuu yidhahdaa allahayow dib ii celi yahan camal wanaagsan soo sameeya wuxuu yidhahdaa rabbi ilaahayow dib ii celi
لعلي لا أعمل إن سمعي صالحا عمل وناكسن أو فيما كي تركت أن كتجي مساء إلهي وجهه وكلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون marka waxa weeye ninkii galay hol canaarta naftiisu hiifayaaye Allah ayu nooga hiili nafiyo shaydaan hubkooda ifkana nagu sii hagaaji irka jannada baxaya aakhiro hanti nooga sii dhig quraankuna waa hogaane duruustuna waa hilaace jahliga way ka hayaane xadiiska lagu hodmaayo fiqigu waa haybad wacane dariiqa wacanan hayno awada sare aan ku gaadhno allow noo hiili maanta wanaagina hor khayrka naftii shaydaan halowshay xumaantay kugu hagtaaye hadaan hogaanka qabanin aday ku habaabisaaye markale ku halaajisaay salaada lagu hantaaye xumaanta laga hayaaye dariiqa xumaanta laga hayaaye wanaaga naftii shaydaan halowshay xumaantay kugu hagtaaye hadaan hogaanka qabanin aday ku habaabisaaye markale ku halaajisaay salaada lagu hantaaye xumaanta laga hayaaye wanaaga lagu hagaaye duruusta la hindisaaye ilaahay baa hiil ku siine wanaaga loo hufnaado dad saadaanta raacdo xumaha heer sare ka gaadho cibaadada haysan weydo og baa lagu gelin hadhowey iftiin heli maysid haatan malaa'ig buugta haysa iftiin heli maysid haatan malaa'ig buugta haysa su'aalay ku hayaane allow noo hiili maanta wanaagina hor khayrka haddaad haabhaabato waxaad haysaaba yahay muxuu talow hebel lahaa hilbaha aad cunayso iyo waxa weeye ilaahay baa quraanka wuxuu ku tilmaamay ay xibbi miyuu jecel yahay axadukum midkiin an yaakula inuu cuno laxma akhiihi hilibka walaalkii oo meeyda fakarihtumoo taqullaha inna allaha tawwaabur rahiim marka waxa weeye haddaad haabhaabato waxaad haysaaba yahay muxuu talow hebel lahaa hilbaha aad cunayso iyo xantuna kula tahay hagaag miyaad hanataa wanaag maanta ka garbaxdaa aadaanta ka leexataa wabaal noqotaa wax jira dad se tahay kii ka hadhay wixii lagu galo halaag hidaayada eebbe iyo miyuu halku seegayaa xumaantaada haybisiyo maxaa hawlka ugu wacan dadkii way is wada hayaan xumaantaa loo hormaray dariiqaa la isirdimay reer hebel baa lagu dhaqmaa anaa kaa haybad wacan halaag lagu sii dhowaa sharciga loo hiilin waa xumuhu heehaab dhulkii dalkii laga sii hayaan tahriib lagu sii haraad baddii maydkuna hadhee dhaqaalaa lagu hamiyey nimcadaad haysana siisay allahayow noo habaysay adaan xamdi kuugu haynay mar kale kuu sii hibaynay allow noo hiili maanta wanaaggii noo hor khayrka wacdigay culimmadu hagaan wanaag laynoo horseedo habeeyaan ee wanaagsan had iyo jeer lasoo bandhigo inaan haynaa habboon allow noo hiiliyo iyana hooygii jannada aakhiro hanti uga yeel ifkana nagu sii hadee anna hallayn hiiliyo